magacayga waa Maxamed Axmed Saciid degan marka ku dhashay xaafadda Horseed anagoo degmada degan ayaa waxay noo qabsadeen colaado fara badan korkeena lagu dagaalamay lix caruur ah iyo ayeeydodii caruurta adeer aan u ahay iyo eedideedii ayaa lagu gubay meel la yiraahdo Siinay dadkaas oo dileen labadii beelood oo isdagaalay beel ka mid ah ciyaalkii si xarxan daraa loo gubay lagu qabatiyay bal in lagu shiday qashin la soo qaatay lagu gubay caruurteedii dhibka ku soo gaaray lixdii caruur iyo ayeeydodii oo meesha lagu dilay oo maanta cidna ay ka joogan adeeraan u ahaa walaalkeyga dhalay walaalkeygan hortooda u dhintay 7 maalmood ka hor u dhintay ayageen markii dambe meesha lagu dilay waa lagu gubay asigan bas lagu dhintay ilmiya goomkii aasaas la yeelay arxan darada iyo kulada soo gaartay midaas ay ahayd waa qaxii dhaxdiisa dagaaladii dhaxdoodii hadda alxamdulillah magaaladii aan ku soo naqnay magaaladeenii aan joognaa wax dhibaana ma qabno ciidamadii dawladda soo gaaray oo amniga sugaya annagana waxaan sameynay amnigii iyo wixii dadkii aan la qabsanay inaan ciidamada garab ku siino amnigii ayaanu magaalada u joognaa markaas ciidamada inaan hor qabanno wax kasto hoola aan sameeyno dadkii aan isdirsan labadii beelo walaalaha shalay isdagaarsanaa oo arxan darada isku dilayay oo maanta ah dad wanaagsan hal koob bakeeri shaah isla cabaya hal bakeeriyo shaah isla cabaya oo maanta waxba ka maqnaan ceeshkii wadaagaya guriga isla seexanaya maanta xaafadda aan joogo xaafadda waxay ahayd kamid ah xaafadda ay joogaan beerihii dagaalada beel kamid ah lama tagi jirin la amaan jirin ma jirin wax isku soo aadi jirin ma jirin qad cagaaran ayaana dhax yaalay mala soo gudbeen xaafadda kale ma aadi jirin maanta ragii walaalahayna ahaa iyo hooyooyinkeeni iyo walaalahayni Soomaaliyeed inaan isdhax galno ninba xaafadiisa lagu soo booqdo maanta xaafadoodii aan soo booqday waxaana meesha u imaanay inaan nadaafadii waxaan kala qayb qaadano oo wanaaga aan tusno inaan walaalnimadii iyo isjirtaankii ehelnimo Soomaalinimo meesha xididkeedii aan ka soo celino nidaamkaas aan meesha u imaanado waa la yiraahdo taasaan hadda waxaan diyaar u nahay inaan fulino oo gacmaha isqabsano leeyo markii aan ku leeyahay dadkii walaalahayga ehelka aan soo dhaxgalay ayagii aan u imid waa u dhilooway markaan ku leeyahay waa hadalka wacad yahay midii liigiiso dhibka ahaa waan ilooway dib u heshiisiintii dhacday waa isku yimid wax uqdadaana ma jiraan wax dadkii walaalahayga dhibka geesin waan cafanay cafis ayaan u fidanay maanta waxaan dad erxana walaala ah oo gacanta haysta oo wada socda oo wada dhaqma maamul baa magaalada la keenay gadoomiyihii degmada jooga gadoomiyihii gobolka jooga waxaa jooga gadoomiyihii arrimaha bulshada jooga maanta maasha Allah Soomaaliya ay tahay marka dhaxdeeda reer marka waxa waa dad Soomaali ah oo walaalaha gacmaha haysta